Xoogsade waa nin xamaali ah oo subax kasta u xoogsi taga suuqa. Isaga iyo xaaskiisa Raaliyo waxay ku nool yihiin nolol hoose, waxayna noloshoodu ku maareeyaa shilimaadka yar ee uu maalinkaasi ka soo helo suuqa. Subax subaxa ka mid ah ayaa isagoo ka sii baxaya albaabka guriga waxay ku tiri xaaskiisii, "Gacaliye, waxaan u baahanahay shallo timaha aan ku hagaagsado. Fadlan galabta hore iigu soo iibi markaad suuqa ka soo rawaxayso." Wuxuu ku eegay il murugaysan wuxuuna yidhi, "Gacaliso, shalay saacadeedii waxaa ka go'ay garka, waana heli waayey lacag aan ku samaysto. Waxaan ka baqaa inaan heli waayo lacag aan shallo kuugu soo iibiyo, balse waxba nagama halaabayo insha Allah." Albaabka ayuu ka sii baxay. Galabkii markuu ka soo rawaxayay suuqa ayuu saacadiisii ku iibiyey lacag yar, wuxuuna ku soo gaday shallihii ay ka dalbatay marwadiisa Raaliya. Isagoo shalladii gacanta ku wada ayuu ka soo galay guriga, waxayse ishiisu qabatay Raaliya oo timihii gaabsatay. Midba midka kale ayuu il naxariis leh ku eegay, isagoo ilmeynaya. Kama ooyin nolosha adag ay ku jiraan, balse waxaa ka ooyiyey wanaagga ka dhaxeeya iyo sida midba midka kale uga shaqeynayo rabitaanka kan kale. Si loo helo lamaano farxad ku wada nool, qasab ma ahan inay haystaan lacag iyo daaro dhaadheer. Kaliya waxay u baahan yihiin lamaane fahansan macnaha nolosha, kuna wada jooga isfaham, ixtiraam, tanaasul iyo samir badan.